Sida la ogsoon yahay, 5 su'aalood baa jira oo la isweydiiyo dadka caalamka soo maray, gaar ahaan qolada la yidhaahdo faylasufyada. Way ku dhawaaqeen su'aalahani, laakiin qofka muslimka isagoo diintiisa ka qaadanaya ayuu si dhab yar uga jawaabi karaa su'aalahaas waxay kala yihiin: xaggee ayaan ka imid, halkeen joogaa, xaggeen u socdaa, yaan ahay, iyo waa maxay ujeeddada aan halkan u joogaa. Shantaasi su'aaloodo badan oo faylasufyada ka mid ahaa oo daraasado badan ay sameeyeen kaga jawaabeen way ku fashilmeen, laakiin intaba jawaabahooda qur-aanka sharafta leh iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu ka helaynaa. Qofka bani'aadamka iyo halkee ayaa uu ka yimid? Qofka bani'aadamka ee sharafta badan waad garan karaysaa dadka qaarkood halkay ku sheegaan inuu ka yimid. Qaar baa sheegay inuu daanyeer ah kadibna isbedbeddel uu sameeyey uu ku noqday bani'aadam, laakiin qofka muslimka ah waxaa ku qanacsan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ka abuuray aabbihii aadan iyo hooyadii xaawa. Aadan calayhi salaam in ciid laga abuuray, xaawana in isaga laga sii abuuray feedhiisa, innagana candhuufta ayuu ilaahay naga sameeyey. Halkaynu ka nimi waa halkaas, halkaynu maraynaa waa adduunyo, halkaynu ku soconnaa waa aakhiro. Adig waxaad tahay islaam sharaf leh oo ilaahay abuuray. Ujeeddada lagu abuurayna waa inaad ilaahay caabudo subxaana wa tacaala, oad u noqoto addoon alla yaqaana waan ilaahay abuuray ee intaasoo nimcaa siiyey ku gacan saydhin. Saas aawadeed sifihii noloshu waxay ku soo ururtay sida allah subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay inuu qofku noqdo qof ilaahay caabuda oo xaqiijiya addoonnimadiisa. Saasi ay ku qurux badan tahay. Waa laba midun inuu qofku ilaahay addoon u noqdo iyo inuu cid kale addoon u noqdo. Qofka diiday inuu ilaahay addoon u noqdaa shaydaan buu addoon u yahay, ma bani'aadan kale ayuu addoon u yahay, ma naftiisa ayuuba addoon u yahay. Waqtigan aynu joogno dadka waxay caabudaan rabitaankooda. Asxaabigii Muqiira bin Shucba ayaa laga qoray, waxaan u nimid inaannu addoommaha ka saarno iscaabudidda iyagoo iscaabudayaan, una saarno inay ilaahay caabudaan. Qofkii ilaahay caabuday addoon u noqdaa wuxuu gartay sirtii nolosha, kii cibaadada ka tagaana muu fahmin sirtii nolosha. Sida allah subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay, cibaadadu innaga ayay dan inoo tahay. Qofka wax wanaagsan sameeyey isaga ayay kayd u tahay, qofkii xumaan sameeyana isaga ayay kor saaran tahay. allah subxaana wa tacaala ma baahda, balse waa loo baahdaa. Cibaadada innaga ayay dan inoo tahay oo u baahan. Cibaadadu waa hadal kasta, ficil kasta iyo qalbi kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinaya.